tartan aqoon isweydaarsi isbarasho u dhexeeya dugsiga badbaada iyo kaamil ciise dugsiga badbaada secondary school oo ku yaala degmada Arabsiya kana mid ah dugsiga gaarka loo leeyahay ayaa waxay saaka safar dheer u soo galeen siday tartan aqooneed u dhexmari lahaa ardayda dhigooda wax ka barata dugsiga dawliga ee kaamil ciise secondary school halkani oo barxada hore dugsiga kaamil ciise waxa uu tartan aqooneed ku dhexmaray labada dugsi waxaanu ahaa mid iskuul waliba uu ku soo bandhigay aqoonta iyo tacabka ay ardaydooda geliyeen ardaydani oo ahaa kuwa ay ka muuqato dadaalka iyo cilmiga ay barteen ayaa waxa hareer socday maamulayaasha labada dugsi intuu tartan aqooneedkani socdayna waxay ardaydu soo bandhigeen aqoonta tayada leh ay ka barteen dugsiyada waxaana tartan aqooneedkani kala soo qayb galay ardayda labada dhinacba maamulayaasha dugsiga badbaada iyo kaamil ciise macallimiin gudoomiyaha waxbarashada degmada Wajaale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay ardayda dhiirigeliyay maamulayaasha labada dugsi iyo gudoomiyaha waxbarashada iyo macallimiin dugsiga badbaado oo naga soo booqday magaalada Arabsiyo waxaan leenahay u dhawaada Wajaale iyo Arabsiyo waa magaalooyin qadiimiya jiil weyn ka dhaxeeyo taa waxaynu inooga maragmo doona oo caday inoogu filan macallimiinta ugu badan ee dugsigan kaamil ciise soo maray dhamaantood waxay u badanaayeen inta ugu badan ama macallimiintii lagu furayba waxay haayeen reer Arabsiyood bay haayeen taamada noogu keentay waad ku mahadsantiin waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada idiga iyo maamulkiina macallimiintiina waxaan leeyahay dhamaantiin waxaan leeyahay si sharaf iyo karaamo la yeelano dugsiga kaamil ciise ee degmada Wajaale dhammaan mas'uuliyiinta karaamada iyo sharafta leh ee ka shaqeysay xafladda tan anaga Arabsiya ka imanay waqtigiina qaaliga noogu hurteen wax la barto waxyaalaha ugu qaalisan waxa kamida wax la beerto waxa ugu qaalisan dadba ugu qaalisan meel wax la dhigtana waxa ugu qaalisan maskaxda dugsiga kaamil ciise inay maanta muujiyeen talaabo aad u qaaliya oo la filayay inay waqtigan qabsoonto inay ku hurteen oo oran karo in dugsiyo fara badan oo facooga ah oo maanta ka dhaqaale iyo karti badanba inaanay ku hiran inaad ku hirateen maamul ahaan aad baan idinku mahadnaqayaa iyo macallimiin ahaan iyo arday ahaanba waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama oo dugsiga badbaado uu gacan wadaag la yeeshay waxa maanta inoo sharafa oo ku faanaynaa maadaama uu soo booqday dugsiga badbaado sida ay sheegeen uu sidoo u badbaadiyay ardaydii reer Arabsiyo annagana waxaan leenahay maanta uu noo yimid badbaado Allah nooga dhigo horta inay xiriir la yeesho sababta u timaadeen waxa weeye inay iskuuladu isku furmaan la isbarto aqoonta waxa u horeysa ugu muhiimsan waxa weeyaan isbarashada طريق دير باد soo marteen waxa way safar dheer baad soo gashay in hore warag intiina badan waxaan islaahay in arag baan rajaynaya waxaan igu ducaynayaa aqoonta soo badhigteen hadaad kaamil ciise ahaydeen iyo hadaad badbaada ahaydeenba Arabsiya magaalada Arabsiya waxay kaga taalaa wadanka Soomaaliland sida wadanka Masar dadka islaamka uu ku yahay wadanka Masar waa dadka ugu aqoonta badan leh dadka marka dunida islaamka la yiraahdo macallimiinta Masarna waa meel wadanka si joogan wax ka dhigaan Arabsiyana waa saas oo kale waa magaalada ugu aqoonta badan leh wadanka Soomaaliland macallimiinta Arabsiyana meel kasta joogan oo wax ka dhigan runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaan soo dhaweynta quruxda badan leh aad sameeyeen haato xaq gudoon waxbarasho haato xaq maamulka haato xaq ardayda maantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ugu dambeyntii wax iyaguna aqoontooda soo bandhigay ardaydii ka kala socotay dugsiga badbaada iyo kaamil ciise ardaydani ayaa waxa ay goobta ku soo bandhigeen hal abuur cusub oo ay sameeyeen qaar kalena waxay soo bandhigeen hibooyinka gaarka ay u leeyihiin halka ardayda kalena ay ku soo bandhigeen aqoontooda ay barteen nurahibukum jamii'an min qulubi dil aqrami wa mudir wa mudarris wa ahbab wa a'lam horta inaad wax barataa aday naftaada muhiim tahay intaan la gaarin waxbarashada waxaan u baranay maxaan ku heli doonaa waxa kalan hablaha mid baan u wadaa inanay bayna isku nahay hadan si gaar ah kula hadlo si guud kula hadlo mid baan kooran lahaa waxbarashadu waa shayga ugu qaalisan adduunka common kindness special the kindness and who has preferred for us is which to come here. In my school are Aberdeen. The school focuses on knowledge. The students have the best teachers. نستقبلكم سلاما ومرحبا بمن زارنا. والعلم هو معرفة على حقائق علمية هو ملاحظة علمية. ريال مغوينو maadada ay ku dhigi master iyo degree iyo meel sare ka gaadho waxa ay mar sheegaan anad minid ilaaweyn waa bina qurxoon oo barashada cilmiga iyo aqoon loo baleysimay aqoon baa badhaadhiyo barta ugu sareysa barqada maantani ka duwan shucuurtayduna ka bilan kuwii hore ee badnaa dareenkan ballaadhan ee farxadda igu biiriyay badbaado iskuul wadana insha Allah waa inii hormarin doonaa imiga siiga jirta awgeed ma tijaabin karino laakiin waxay noo hayaa bajaaj soconaysa waxa weeyaan badii iyo daruurtii makeup
sawir taqaaniin indho kalarku markii horeysay uu positive negative-ka ahaa wuxuu ahaa kalarka yareesaya imigana kalarkii waxa uu noqday kalar aad iyo aad ugu ekaaday ilaa 4 wuxuu gaaray positive marka qofka macaan badan ayaa haya bisliin other parties waxa kiniinkan waxa loo isticmaalaa kiniin antibiotic kiniinkaadooda garansiin waa Panadol extra lagu qaybsamaa waxa loo kala qaybiyaa Panadol extra iyo Panadol advance intuu meelahaas lagu diraa waxa kala soo sadeeyay injectionska waxa loo qaybiyaa ilaa 3 qaybood ilaa 2 qaybood abaal bada abaal bura abaal bur iyo dheeraada ninba kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni abaalka aad gasheen sida fiican noo soo dhaweyseen aad baad ugu mahadsantihiin wasiid maxamed mudar sidaanada Royal TV magaalada ganacsigeedka degmada Togwajaale